nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiine isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nabigu ku yidhi soo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa nin reer baadiya ma garanay nabiga sal alay wasallam magaalada madiina wuxuu u soo galay awrka inuu iibiyo hogaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaabuu nabigu degdegay maadaamuu nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaabuu nabigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrkii ka iibinaya markaabuu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yidhi war xaggee soonigii kale iibsanay ma ninkii reer baadiya yidhi igamaad iibsan markaabuu nabigu war waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsan markaabuu nabigu leey war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiine o dhan baa ku soo ururay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuula allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkan aad baan u sheegi buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusayme keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam lianna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii baad gaalada qureysheed aad u wadaa markaasay tidhi may kalla xaashaa wax sir anu nigama sido mee sir baad naga wadaa iyo nigama sido markay qof run u sheegaya iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa la yidhi kolka in yar soo noqdeen cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysanay oo warkii nebigaan beeninay buu yidhi nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wadaa ee sirtaa ka soo qaada maadaamuu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nebigana been ka soo qaadnaa buu yidhi sawna ka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqono cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay haddaad sirtaa halkaas soo dhigi weydid gacmahaygaan kuula iman buu ka yidhi markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba intay sii jeesatay mara timihii intay furtay timahaygii tidcanaa ayaa warqad intaa alle ka soo saartay warqadii bay nebiga u keeneen sal alla alay wasalam yaa rasuul allah waatan gabadhii sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiya
xalaqadu dhageysanaya waa la furay waa la akhriyay risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibn abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxa ka waramay marka uu quraysh uga waramaya sirtii nabi maxamed sirtii ciidanka dawladda islaamka sirteedii buu gudbiyay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam midabkiisa bedelmay rasuulka halkan umar baa joogo markiiba kacoo yiri ya rasuul allah nikan munaafiqay nagu jira ee sirteeni galada u sheegayay ana qoorta ka goynayay ugu fasax buu ka yiri markaa uu nabigu umar u kaadi degdegin ya xaatib labbayk ya rasuul allah saasuu leeyahay labbayk ya rasuul allah sarakac buu ka istaagay sirteena inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal sheeg buu ka yiri wuxuu ya rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yiri raga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa maka u difaacaya ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisii baa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga ma aha ubadkayga iyo reerkayga baa quraysh kaga dhaximiday hadii waxaan is-iri haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegto qurayshta waxay is oranayaan xaatib inniku inaga mid yahay reerkiisa daranyada uga dhaba intaasun baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nabi allah sirtaada sababtaan u sheegayna taasun baa igu kaliftay bas inay reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaan ay yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysanin ha ka dhibina markaa buu nabigu aamusay sallallahu alayhi wasallam ila ninkani dambi weyn buu galay sirtii dawladda islaamku gaalada u gudbiyay markaasaa nabigu aamusay isla markii nabigu halkii fadhiya ayaa fi suurati awaa'il suurati al-mumtahin ya ayuha alladhina aamanu la tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawaddah ila aakhir al-aayah suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku cadeeyay inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka muuminiinta ilaahay nabigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay cadeeyay iimaankiisii baa ilaahay cadeeyay iimaan baa loo markhaati furay inuu muumin yahay markaasaa looga digoo la yidhi kaa isagoo keliya maahine bal muuminiintoo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogii iyo cadowgii ilaah iyo cadowgii rasuulka inaysan awliya ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaaba markaa buu nabigu cumar buu eegay ya cumar xaatib waa kaasoo qur-aankii baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankii baa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqonna waa looga digay laakiin cumarow waxaad ogeyn ahlalbadri buu ahaa ninkani waa reer beder waa 313 nin ee dagaalka baderigala qayb gashay weeyaan ahlalbadrina ma taqaanaa darajadooda waxaa la yidhi ya ahla badrin ifcaluu maa shi'tum faqad gufira lakum ya ahla badrin waxaad doontaan ba sameeya ininka dembigiinni waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya macnuhu maahin dunuubta ku dhaca maaha ninka badriga hadduu gafana baa la yidhi uu dembi ka dhacana su'ul khaatima ku dhimani maaye xusnul khaatima iyo ku dhiman doona marka u dambaysa laana maalintaas ilaahay aqbalay maalintii tirada muslimiintu ay yaray ee gaaladuna ay soo duuleen iyagoona dagaal ku talagelin ayuu nabigu u saaray macrakatu badr aynay soo qabtaan ciira quraysh dagaal umay jeedin laakiin ilaahay baa qadaray dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyadda bay la yimaadeen diinta inay difaacayaan xataa nazala jibriilu calayhi salaam maalin maalmaha ka mida jibriil baa soo degoo yidhi maa tacuduuna ahla albadr fiikum yaa muxamed raggaa dagaalka bader kaala qayb galay agtiina qiimahay ka leeyihiin bal ii sheeg oo halkeed maxaad ku aragtaan markaasuu nabigu yidhi min afdali almu'miniin mu'miniinta kuwa ugu fadli badan inay yihiin baan u aragnaa buu rasuulku yidhi markaasuu jibriilna yidhi wakadalika miman shahida badran min almalaa'ikati sidaasoo kale annakuna haddaan malaa'ig nahay malaa'igtii dagaalka bader soo dhaadhacdee nagala qayb gashay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa malaa'igta ugu fadli badan